أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، webkan wax ka baranayna waa madinaarabic.com, my youtube waa luga yarawan, my facebook group waa tafsiirka qur-aanka. waxaad igala soo xidhiiri kartaa oo kale qolka qur-aanka aan ka mid ahay admeynka insha allah. wixii su-aalaad qabta maaragtay iyo anything ila soo xidhiiri kartaa maaragtay. okay, maanta lessonkii afaraad baan ku jirnaa weli, qaybtiisii 13aad ama 13aad su-aalo ku weydiinaya 5 su-aal waa inaad ka jawaabtid oo kula dulmaraya insha allah. excuse me, I just eat food maaragtay. oo kula dulmaraya adiga inaan ku dhaafay hadaa ka jawaabtid, laakiin just meesha mark baad taabanaysaa, fartaas se kaga jawaabo kusoo qoro gaduudan ama cas, kuma qoranayn marka hore, waa jawaabihii. marka akhriskana isku dayna akhrisid, waanu kula akhrinaya insha allah. okay, qaybta koowaad. anta min alfilipini, anta min alfilipini. jawaabtan ku qor baa lagu yiri, marka kuma qornayn halkan waa jawaabtii. laa, maya. ila nacam ma dhihi kartid oo adi Philippine-ka maada imaanin, so ku jawaabaa lagu yiri Inglaterra inaad ka timid. so laa waa inaad tiraahda, ila Philippine waa kala duwan Inglaterra maaragtay. ana min Inglaterra. somehow ana intaan wax maqlaay jimkan gac ama loo akhrinayn, I don't know what's the reason. I think masarta jimka gac tiraahdo masaari macallimiinteed masaari oo badnaan, maybe halkaas inaan ka keenay, laakiin jimba halka ku qoran mana maqlin wax Inglaterra dhahayo. Inglaterra aan maqlaa. anyway, adiga inaan ku sheega iska damcada maaragtay. sheekhu qaldan inta isdheelad ama muxuu gac u akhrin lahaa. okay, min ayna anta, adiga xageed ka timid. hindi, alhindi inaa ku jawaabta la rabaa, hindi inaa ka timid. ana min alhindi, aniga waxaan ka imid India. taxigta min ayna xaamidun, xaamid aaway. اليابان inaa gelisaa la rabaa. xaamidun min alyaabani. isku day inaa qortid, fahamtid please insha allah. man min asiin, yaa ku sugan ama jooga chinaha. khaalid inaa dhahda la rabaa. khaalidun min asiin, yaa ka yimid amin. man fil waayo, yaa ku sugan. man min asiin, yaa ka yimid, ila min waay, ilaana waa aadisteeda. khaalidun min asiin, khaalid chinaha ka yimid. okay, min ayna xaamidun, xaamid aaway alyabaan. khaalidun min ayna, xagu ka yimid xaamidun. khaalidun min alyabaan. khaalid xaamid wuxuu ka yimid min alyabaan. khaalid baan akhrina, xaamidna qoran tahay. xafisli waa malaha bilaahi. ayna dahaba cabaasun albeyt, inaad tiraahdaa la rabaa. dahaba cabaasun, cabaasu wuxuu aaday ila albeyti, guriga ayuu aaday. waa iska tadriib ama exercise. casharkeena intaasuu kooban yahay. tartiib baan u soconaynaa insha allah. 13 aan joognaa, 4 kalena waa 17. lesson 4 waa ka baxayna marka insha allah. badanaa muraajaca iyo tadriib buu noqonaya maaragtay, si wixii u celcelino ay maskaxdii u barato. taasaan kusoo gabagabaynayaa casharkeena. wabilaahi tawfiiq.
wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.